Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaam saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Guurista iyo geedigu ma ahan wax dadku jecel yihiin, qofka ay danta ku kalifto mooyaane. Ka guurista deegaankii hore ee aad ku noolayd, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn iyo xaafadii aad muddada ku noolayd, waa mid dhibaato badan oo aan dadka badankoodu jeclayn. Mowduuceena maanta ayaa ku saabsan nin u dhashay dalka Australia oo guri cusub oo uu dhawaan u guuray u noqday mid noloshiisa wax badan ka bedelay. farxad iyo hodantinimo uusan filaynin kala kulmin. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. ninkan waan magaciisa warbaahintu xusin sababo la xiriira diamond-ka uu helay awgeed ayaa sida wararku xuseen dhawaan u guuray guri cusub oo uu kireystay, kaas oo markii uu bilaabay inuu nadiifiyo ka helay diamond tiro badan guriga dhexdiisa. farxadi waa naxdin ayay ku noqotay, waxa uuna sida laga wariyay ku adkaatay inuu rumaysto kiishkan uu helay ee diamond-ka ah. waxa uuna muddo ku rumeeyay in waxa indhihiisu arkayaan ay run tahay iyo inuu riyoonayo. hase yeeshee markii ay u caddaatay inuu diamond run ah oo saafi ah ka helay guriga, ayuu degdeg ula xiriiray ciidamada ammaanka ee ka howlgala deegaankaas, waxaana u tagay khabiiro ku xeel dheer arrimaha baaritaanada, kuwaas oo iyaga laftoodu xaqiiqsaday diamond-kan inuu yahay mid sax ah. booliska ayaa sidoo kale caddeeyay in diamond-kan yahay mid waqti hore oo 10 sannadood laga joogo looga tagay gurigan, taas oo sida loo maleynayo ay ka tageen dad ka ganacsada macdanta iyo dhagxaanta qaaliga ah oo loo maleynayo inay gurigaas deganaayeen kuna urursan jireen diamond-ka iyo macaadiinta kale ee ay ka ganacsadaan ka hor inta aanay suuqa geyn. sida uu qabo sharciga dalka Australia, ninkan diamond-ka ka helay guriga uu kireystay waxa uu taala inuu baafiyo alaabta uu helay si loo ogaado qofkii asal ahaan u lahaa alaabtan. haddii la waayana isaga loo sharciyeeyo. waxa kale oo haddii qofkii lahaa sheegto u taala canshuur badan in laga qaado qofka yeesha diamond-kan. ninkan helayna abaalmarin baade xafid ah uu siiyo, taas oo noqonayso inuu helayo lacag u dhiganta 25% qiimaha guud ee diamond-kan. taasi oo micnaheedu tahay haddii diamond-kan qiyaas ahaan qiimihiisu noqdo $100,000 in uu ninkan diamond-ka helay uu heli doono $25,000 Mareykanka. ninkan ayaa si kasta oo ay xaaladdu noqoto qarka u saaran inuu si fudud u hodmo oo uu lacag tiro badan oo uusan u dhibtoon helo, waana sababta ay booliska iyo warbaahintu uga gaabsadeen baahinta magaciisa. waxa uuna geediga iyo guriga cusub oo uu guuray u noqday kii ugu fiicnaa abid. daawada haddii aad hore u ahayd qof aad u dhibsada geediga, hadda kadib ha dhibsan, waayo waxaa laga yaabaa in ninkan oo kale aad ka faa'iido. dabcan waa iga kaftan. daawadayaal muuqaalkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii aad ka hesho muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale. waa inoo muuqaalka xiga insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.